kusoo dhawaataan daawadayaal warbixin laga soo gaadhay habeenkan caawa dalka iyo dadweynaha oo uga qayb qaadan doono xagga faallooyinka wariyay Cabdulkariim Xasan Maxamed. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qodobada ugu doorkaroon warkeena habeenkan caawa daawadayaal waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka mudane Dileeta Maxamed Dileeta oo maanta qaabilay xubnaha wafdiga Afrika Team ee hay'adaha qaabilsan horumarka bulshada ee qaaradda Afrika oo ka qayb qaatay shir ay isku yimaadeen xiriirka Afrika Team oo ka dhacay Djibouti. dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaa maanta laga xusay 1 December oo iyadu ah maalinta caalamiga ee ka hortagga dhinaca la dagaalanka sidaaga. wasiirka caafimaadka mudane Cabdalle Cabdilaahi Migil ayaa arrintaasina nooga warramay maanta. xagga wararka caalamka 6 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday hawlgallo xagga cirka oo diyaaradaha dagaalka Yuhuudda ka sameeyeen koonfurta Jidda Gaza. dhinaca barnaamijka nuclear-ka waddanka Iran waxaa maanta shir lagu qabtay magaalada Paris ee xarunta waddanka Faransiiska. shirkaasina waxaa yeeshay 6 waddan ee ugu quwadda weyn adduunka oo ka xaajoonayay suurtagalnimada cunaqabatayn la saaro waddanka Iran. warkii dalka ra'iisul wasaaraha dalka mudane Dileeta Maxamed Dileeta ayaa maanta qaabilay wafdiga xiriirka Afrika Team ee agaasimayaasha wakaaladaha qaabilsan afulinta danta bulsho ee qaaradda Afrika. wafdigani waxay ka koobnaayeen agaasimayaasha guud ee wakaaladaha qaabilsan fulinta howlaha danta bulsho oo iyagu ka qayb qaatay shirkii 17aad ee xiriirka Afrika Team. kuwankani waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ahmed Awaale iyo agaasimaha wakaaladda Adib ee Djibouti mudane Khadar Ismaaciil. sida laga warqabo 26 bishii November aan soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Dileeta Maxamed Dileeta waxa uu furay shirka xiriirka wadamada Afrika ee loo yaqaano Afrika Team. sida dalalka kale ee caalamka jamhuuriyadda Djibouti waxaa maanta laga xusay 1 December oo iyadu ah maalinta caalamiga ee ka hortagga cudurka sidaaga ee qarnigan. waxaana hormuud ka ahaa xuska maalintani wasaaradda caafimaadka ee Djibouti iyo hay'adda OMS. warbixin uu jeediyay saxaafadda wasiirka caafimaadka ee dalka mudane Cabdalle Cabdilaahi Migil waxa uu ka warbixiyay oo ka warramay dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo xukuumaddiisu ay ugu jiraan la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga. gees kale wasiirka caafimaadka ee dalka mudane Cabdalle Cabdilaahi Migil waxa uu jeediyay baaq heegana bulshada reer Djibouti inay ka qayb qaataan xuska toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka sidaaga oo laga xusi doono Djibouti 23 ilaa 29 bishan December ee maanta aanu kowsanay hadduu rabbi idmo. walaalayaal saad idinku ogtihiin maanta waa maalintii caalamka laga xuseeyay maalintii lala dagaalamayay cudurka halista ee qarniga ee afka qaalaad lagu yiraahdo sidaaga. waa maalintii la iska wargelinayay. waa maalintii cilmi ahaan xagga caafimaadka horumar wixii laga gaaray hadday tahay xagga dawladda iyo hadday tahay xaggii daglaal ka badbaadin lahay bini'aadankaba sida cudurka halista loo kala qaadi lahaa. waa maalintii baraarujin loo sameynayay shacabweynaha sidii cudurkaasi loo kala qaadayay sidiina layskaga ilaalinayay. innaku haddii aan nahay shacabweynihii jamhuuriyadda Djibouti waad ogtihiinoo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti uu daadihinayo madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Geelle waxaa dowladdeenu ay ku dhaqaaqday barnaamij ballaaran oo lagula dagaalamayo cudurka halista ee afka qaalaad sidaaga lagu yiraahdo. dowladdu waxay dhistay hay'ad isku keenaysa wasaaradaha dalkeenu uu ka kooban yahay amba hadday tahayba ururada sida shakhsiga shacabweynuhu uu leeyahay amba hay'adaha aan dawliga ahayn iyaguba nala shaqaynaya sidii siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dowladdu ay u dhigtay habdagaalka lagula dagaalamayo cudurkaasi way u noqon lahayd siyaasad ku wajahsan wada shaqayn
wada shaqayntaas oo keenaysa tamar iyo muruq dowladdu waxay lahayd in meel ay iskugu keento meeshaasi iyadu ay daadiyiso siyaasaddii iyadu isku xidho in alla intii xubnaha dagaalka ku qaadaysa cudurkaasi hadday tahay xagga xukuumadda hadday tahay xagga shicibweynaha iyo hadday tahay xagga hay-adaha caalamka ee nala shaqaynayahay wasiirka caafimaadka ee dalka mudane cabdalla cabdilaahi migel oo ka hadlayay maalinta caalamiga ee ka hortaga cudurka qarnigan ee sidaaga oo maanta laga xusay wadamada caalamka isla xuska maalinta caalamiga ee ka hortaga sidaaga xaflado baraarujin ah ayaa lagu qabtay dugsiga dhexe ee fukusawa ee ku yaala xaafadweynta balbala daawadayaal raalli ahaada sawiradaasi waxay yihiin sawiro aad korki doontaan dhowaanteeda warka habeenkan caawa balse markana ka codsada farsamayaqaanada inaan ku noqono dugsiga fukusawa oo maanta lagu qabtay baraarujin dhinaca sidaaga macallimiinta dugsigaasi ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan ka hortaga cudurkani ilaa iyo 300 oo arday ah ayaana ka qayb qaatay wacyigelinta halkaasina waxaa ka hadlay agaasimaha hay-adda kaliban xaamid maxamed waxaana uu ka warbixiyey tallaabooyinka dhinaca la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga geestiisa wakiil ka socday xoghaynta howlfulinta ee la dagaalanka cudurada sidaaga kaneecada iyo qaahada ayaa hambaliyey tallaabooyinka wacyigelinta ee barnaamijka la dagaalanka sidaaga ee xagga waxbarashada lagu dhaqaaqay xarunta shirarka loo yaqaano kulan center waxaa maanta laga soo gabagabeeyey howlaha shirka 18aad ee ay yeesheen xiriirka africa tib ee wakaaladaha qaabilsan horumarka bulshada ee qaaradda afrika agaasimayaasha 16 wakaaladood oo ka mid 19 wakaaladood ee Africa Tip ayaa ka qayb qaatay howlaha shirkani waxaana shirkani ee markii ugu horeysay lagu qabtay Djibouti lagu soo doortay xafiiska howlfulinta xiriirka Africa Tip jagada gudoomiyenimo ee Africa Tip waxaa loo magacaabay Seduka oo u dhashay wadanka Burkina Faso halka jagada gudoomiye ku-xigeenkana loo doortay Jamhuuriyadda Djibouti oo matalayay agaasimaha wakaaladda ADTIP خضر إسماعيل جيلي gabagabadii shirka Africa Tip waxa uu joogay duqa magaalada Djibouti mudane Ali Ismaaciil Yaale iyo agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ahmed Awaale gudoomiyaha cusub ee Africa Tip iyo agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Ahmed Awaale waxa ay tilmaameen ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka dhinaca saboolnimada waxaana ay ka hadleen gabagabadii shirka ay yeesheen xiriirka Africa Tip ee wakaaladaha qaabilsan fulinta howlaha danta bulsho ee qaaradda Afrika waxaana shirkaasi dhawaanta iridaha u furay 26kii November ra'iisul wasaaraha dalka mudane Dileeta Maxamed Dileeta shirkaasi oo maanta laga soo gabagabeeyay xarunta shirarka ee kulan center ee ku taala caasimadda Djibouti agaasimaha cusub ee Africa Tip waxa uu tilmaamay ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka dhinaca saboolnimada ee wadamada qaaradda Afrika waxaana uu ka warramay ujeedooyinka laga sugayo xiriirka Africa Tip ee ku gudoobeen wadamada qaaradda Afrika ilaa iyo 19 wakaaladood oo qaabilsan fulinta howlaha danta bulsho de la clôture de la 17e assemblée gudoomiyaha cusub ee xiriirka Africa Tip iyo agaasimayaasha kale ayaa kadibna qabtay shir jaraa'id oo ka dhacay isla xarunta kulan center ee lagu qabto shirarka muddo 7 maalmood ah waxaana sharaf u yeelanay inaan halkan ku qaabilo ururka Africa Tip oo aan siin doono tababaro xagga maaraynta istiraatiijiyadeed anagoo la kaashan doona ururka reer Yurub waxaan kaga wada hadli doonaa oo aan kaga wada sheekaysan doonaa muddada uu socdo tababarkani sidii ka qayb qaatayaasha tababarkani ay la qaybsan lahaayeen oo ay u fahmi lahaayeen xaaladaha dhaqaalaha iyo bulshada ee ka jira dalalkooda en marge de ces séminaires donc nous discutions entre nous puisque nous nous trouvons comme l'a si bien dit le président une phase où les adjectifs évoluent et s'adaptent à leur contexte, l'évolution de leur contexte socio-économique dans chacun de leurs pays. Il est
waxaa muhiim ah inaan ogaano aasaasidda hay-adahani inay tahay mid horta ku fadhida ahmiyad gaara iyada oo laga dhaqaaqi doono had walba xaaladaha bulshada iyo dhaqaalaha ee dal walba waxaana uu yahay baaqa aan sidno inaan u sheegno xukuumadaha inay jiraan siyaabo kale oo casri ah oo loola shaqayn karo nidaamyadii hore ee marka hore lagu shaqayn jiray gaar ahaana xagga hirgelinta mashaariicda dawliga ah aqoonsi ku saabsan ansixinta istaraatiijiyadda wargaarsiinta la dagaalanka cudurka hargabka shimbiraha ayaa lagu qabtay maanta isla xarunta kulan center ee ku taala caasimadda aqoonsigani waxaa ka qayb qaatay xooghayaha fulinta la dagaalanka cudurada sidaaga qaaxada iyo kaneecada mudane cumar cali ismaaciil iyo xooghayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo deegaanka saalax baanubeyta iyo abubakar ducaale wacaysan waxaa kale uu joogay wakiilo ka socday unicef iyo OMS intii uu socday aqoonsigani waxaa si aada looga hadlay ujeedooyinka istaraatiijiyadda wargaarsiinta qoraalka istaraatiijiyadani waxaa soo diyaariyey koox ka kooban wasaaradda dhinaca caafimaadka wasaaradda qodaalka iyo wasaaradda deegaanka xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka abubakar ducale wacays oo ka hadlay fadhigani maanta waxa uu carabaaday ahmiyadda diyaarinta istaraatiijiyadda dhinaca wargaarsiinta ee kahortaga cudurka hargabka shimbiraha waxaana fadhigaasi uu ahaa mid maanta ka dhacay xarunta kulan center ee ku taala caasimadda kadibna waxaa waraysanay fadhigaasi markii lasoo gabagabeeyey mid ka mida ka qaybgalayaashii fadhigaasi ku saabsanaa istaraatiijiyadda xagga wargaarsiinta ee kahortaga cudurka hargabka shimbiraha ku saabsanaa ansixiyo buug la soo bandhigay buuggaasoo soo socday shaqadiisu inay ahayd ilaa intii la soo sameeyey kula saabsan cudurka shimbiraha sidii loogu hortegi lahaa taasi oo buuggaasi lasoo dhameeyey maanta la soo hordhigay dadkii ku shuqul lahaa inay ogaadaan ay arkaan lana ansixiyo oo ay ka soo qayb galeen komitada pilotaajka waxa looga afgaalan ay eegaan ansixiyaan dareemada si eego haddii wax lagu darayo iyo haddii wax laga naaqusi karayo saaba maanta hadafka maanta saabka ku saabsanaa waxaa joogay sekretar generaaladii agricultureka saddex ministeer horta concerniga dadkii soo ilaaboreeyey buuggaasi soo sameeyey isku soo dubariday dadkii finance gareeyo hay-adihii ka mid yihiin iyo dadkii kale ee dibadii kasoo wada qayb galay laga soo ambiteeyey si ay isla wada eegaan waayo tani waxay isku yeedhay labada ministeer walba cid walba inay concernaysada oo qaybooda laga soo dhaqaatay tababar u socday qaar ka mid a ciidanka booliska qaranka ee Jabuuti ayaa maanta laga soo gabagabeeyey xerada booliska ee degmada Nagaad tababarkani waxa uu socday 2 toddobaad waxaana loo fidinayay 10 ka tirsan booliska qaybta dhinaca baaritaanka tababarkani waxa aqoontiisa ka bixinayay khadiir ka socday booliska Faransiiska waxaana tababarkani uu ku saabsanaa xagga baaritaanka agaasimaha booliska qaranka ee Jabuuti Colonel Abdullahi Abdi Faarax ayaa daadinayay munaasabadii lagu soo gabagabinayay tababarkaasi waxaana halkaasi ka qaybgalayaashii tababarkan ee ciidanka booliska loo qaybiyay shahaadooyin gabagabadii aqoonsigaasi ama tababarkaasi u socday 2 toddobaad agaasimaha booliska qaranka ee Jabuuti Colonel Abdullahi Abdi Faarax oo ka hadlay munaasabadaasina waxa uu hambalyeeyay cilaaqaadka wanaagsan ee xagga farsamada ee u dhaxeeya booliska qaranka ee Jabuuti iyo booliska dalkaasi Faransiiska waxaana halkaasi agaasimaha booliska qaranka ee Jabuuti uu gees kale wax ka taabtay ahmiyadda tababarka ay soo dhamaysteen qaarka ka tirsan ciidanka booliska ee Jabuuti tababarkaasi socday 2 toddobaad haddaba gabagabadii tababarkaasi waxa aan waraysanay isla agaasimaha booliska qaranka ee Jabuuti Colonel Abdullahi Abdi Faarax xilsaan soo xireyno waxbarasho ku saabsanaa hawsha askarta ku shaqale amba kooxda ku shaqale sidii markay meesha dambi ka dhaco wixii calaamada lagu garan karo la dambilaha loo heli lahaa taasoo ku shaqalahayd waxaa ka mid ahaa reedka uu qofku meesha ku reebo waxaa ka mid ah maxaan ku lahaa wuxuu dharku sito oo kaga hara meesha waxaan jecelnahay tababarkaasi in kastuu yahay maanta kii ugu horreeyey waxay haddita noqonaysaa ku joogtaa isdaba soconaya ilaa inaan gaarno heerka ay socdaan boolis kale dunyada khaas ahaan kuwa wadamada horamaray oo gaadha heer haddii qofka dhibaatada geysta dambiilaha uu tin kaga tago meel
tinta la tixraaco laga soo saaro qofku ahaa ay ka gooday si loo garan lahaa imanka waxaan soconnaa raadka ka waxaan jecelnahay in adkeenno marka adkeenno aan u tallaabsano sidii qofka bini'aadanka jirkiisa waxa ku yaalla wixii ha noqoto naqaskiisa ha noqoto cafiga ka baxaya ha noqoto tin ka gooday aan u gaari lahayn iyadoo laga dhaqaaqay waxaas si loo heli lahaa qofkii dambilaha ee raadka ku raba meesha agaasimaha guud ee booliska qaranka kolonel cabdilaahi cabdi faarax dhinaca wararka caalamka gaar ahaana degmada bariga dhexe 6 qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday howlgallo xagga cirka oo ciidamada yuhuudda ka sameeyeen maanta koonfurta jidda Gaza gees kale madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa ku tilmaamay in la gaaray ujeedooyinkii shirki nabadeynta dhawaanta ka dhacay magaalada Annapolis ee gobolka Maryland ee waddanka Mareykanka isagoo ka hadlayay magaalada Qaahira oo maanta booqasho ku joogay ayaa maxamuud cabbaas waxa uu tilmaamay in hadafka shirka Annapolis uu ahaa in dib loo dhaqaajiyo wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin oo waqti badan laga rajo dhigay 6 qof oo reer Falastiin ah ayaa xalay ku dhimatay koonfurta danta galbeed ee webiga Urdun kadib weerar xagga cirka ah oo ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen halkaasi habeennimadii xalayto wararkan oo laga soo xigtay ducaha dhakhaatiirta ee Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegaya inuu u geeriyooday ruux Falastiini ah dhaawacii ka soo gaaray gantaalihii ciidamada yuhuuddu ay la beegsadeen goobahaasi waxaana la sheegayaa in mujaahidiinta halkaasi ku shahiiday ay dhammaantoodba ka tirsanayeen garabka hubaysan ee ciidadiin al-Qassam oo ka mid ah ururka Xamaas ee ka taliya jiidda Gaza muddo 5 bilooda mujaahidiinta reer Falastiin ayaa iyaguna geestooda waxay ku hanjabeen inay ka jawaabi doonaan weeraradaasi oo ay u soo aari doonaan walaalahooda geeriyooday wadan ee ugu quwada weyn adduunka ayaa maanta ku shirsanaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaana isleegayeen suurtagalnimada cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo wadanka Iran oo ku saabsan barnaamijka xagga nukleerka diblomaasiyiinta 6 wadan ee ugu quwada weyn adduunka oo kala ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa shirka maanta ku yeeshay magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxa uu ahaa mid isku yimaadeen agaasimayaasha arrimaha siyaasadda ee wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamadaasi shirkaasina waxa ku soo beegmay kulan ay yeesheen Javier Solana mas'uulka u qaabilsan midowga Yurub siyaasadda arrimaha dibadda iyo Saïd Jalili oo isagu ah wadaxaajoodka nukleerka wadanka Iran ugu qaabilsan waxaana shirkaasi uu qayb ka ahaa xaaladda hubka nukleerka ee wadankaasi Iran shirka yeeshay 6 wadan ee ugu quwada weyn adduunka ka dhacay maanta magaalada Paris waxa lagu qabtay dhinaca xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska dowladda Mareykanka waxa shirkaasi u matalayay Nicolas Poirle oo ah ku-xigeenka xogayaha arrimaha siyaasadda ee Mareykanka Saïd Jalili oo ah mas'uulka dowladda Iran ugu qaabilsan wadaxaajoodka nukleerka ayaa sheegay in cunaqabateyn la saaro wadankaasi Iran haba yaraatay inay waxba u dhimi doonin sida barnaamijka xagga nukleerka ee wadankaasi Iran waxaana shirkaasi maanta yeeshay wadamada ugu quwada weyn adduunka ahaa mid ku saabsan in la saaro cunaqabateyn wadankaasi Iran hase ahaatee dowladda Iran waxay sheegaysaa inay sii wadi doonto barnaamijkeeda xagga nukleerka Mareykanka ayaa dalbay in la saaro cunaqabateyn wadankaasi Iran hase ahaatee agaasimaha wakaaladda caalamiga ee tamarta atomiga Maxamed Al-Baradici dhawaanta warbixin uu soo saaray waxa uu sheegay in madaxda wadankaasi Iran ay muujiyeen wadaxaajood iyo weliba wada shaqayn ay la muujisay wakaaladda caalamiga ee tamarta atomiga waxaana agaasimahaasi wakaaladda caalamiga ee tamarta atomiga Maxamed Al-Baradici warbixin uu siiyay dhawaanta qaramada midoobay uu sheegay in wadankaasi Iran lagu dhaqaaqay hore socod dhinaca barnaamijka nukleerka qodobkaasi ugu dambeeyay daawadayaal warbixin laga soo gaaray habeenkan caawa dalka ayaa dadweynaha uga qayb qaatay wariye Cabdulkariim Xasan Maxamed waxa laga socoteen oo aan naga daawaneysay telefishinka Djibouti satellite-ka iyo dabcan aalada internet-ka oo naga shaqeynayay jooga wadamada caalamka ee dalka gudihiisa inta dib u kulmi doono habeen dambe warka lamida hadduu Rabbi loo aqbalo inta ka horeysa waxaan ku dhaafayaa dhammaantiin nabadgelyo iyo amaan Allah